jira adigu xantooda maxaa kaaga shaqo jiro wixii kala tagay wixii isku maqan telefoonada dhigta ku wada haystaan dhiga Minnesota loo maraan tagay and I saw everything meel ay naag kaga xam badan tahay ay naag kaga wasaq badan tahay ay naag telefoon dhigta kaga gisha badan tahay xijaabka ma soo arag Minnesota aan ku soo arkay taada ku mashquul gurihiina ka shidan tahay waxa ku soo haray ilmuhu markay timaada aabaha Soomaaliyeed horta kulay haduu guriga jooga hata ilmo kulama qabteen anaga soo wada aragnay ayagoo taagtaagana ilmahooda anaga quudinayna ano baby ay dhabta ku haystaan labada kalena homework ka caawina asagoo jooga horta ilmo ku macaawinaya oo asagana waxba baraninba maxay barteen markaas waxay dhahayaan waadna yasaysaa maxaad barateen ilmo waxa caawiya nin yaqaan sida book loo akhriyo ma taqaan book sida loo akhriyo adaab u baahan inaan wax ku akhriyo maxaad barateen horta isoo sheega maxaad barateen nuurta wayna nacabta deeysin maxaad barateen ilmiina book mu akhrin kartiin buuwak uma akhrin kartiin hooyooyinka Soomaaliyeed idinku laba mid sameeya aaba Soomaaliyeed wayna ognaa inuu waxba baranay adigu ilmahaaga wax u bara marka adigu library la tag ilmahaaga tural help aad helaysaa iskuulka weydisa caawitaan bal adigu ilmahaaga u kac oo noqo hooyada ayadu wax barataa si ilmaheeda u caawisaa nimanka waxay duurka u wada galayaan waa aqoon la'aanta they have low self esteem taaga orta lagu fuulay ha u malayn lacag jecel kaliinay tahay nan qawowgaas iyo barafkaas soo xaaqay maanta qawowga jira kali faraha galoos la'aana iskuulka ilmaha geey markaas ay faraha saas noqdaan nin barafka aadi lahaa ma jirto laakiin waxay ka cararayaan waxyaalo badan waxay ka cararayaan in la dhaha dhaqanka gurigu dhex taagan yahay war ilmaha ma iga qabatid oo ilmaha ma buugto akhrisin ma muxuu akhrina ina isku dhacdaan oo isqabataan oo ka carara wax kale kama cararaya lacag jecel ma lacag waa la jecel laakiin lacag saa loo jeclaana weligay oo taayiro waaweyn oo adig kula dhan bir lagu xiray barafkan oo buuro laga dagaay ma jirto imtixaanka inta dhamay mar lahayn nimanka laakiin they have low self esteem they don't want to deal with you they don't want inay ku face gareeyaan naftooda ay u cararayaan Saamina garan marka idinku ilmihiinu wax u bartaa iskuulada taga iskuulkooda hata ilmaha waxay leeyihiin tuurar lagu caawin kara weydisa caawitaan make sure walaalo YouTube ku wada jira luqada English is very easy in la bartaa ina ilmahaaga buugtu akhrisid inta ayagu maqan yihiin adigu wax baratid waxay caawinaysaa ina ayaguna ma aragtay ay heer gaaraan ayna hadhow damba ku dhihin hooyaden aqoon ma laha she knows nothing ilmooyinka that is what they say my mom knows nothing you know ina ilmaha sheekaystaan midka hadda 6 jirka oo 7 jirka aan gelino first grade ama la dhaxda ku yeeno hooyo waxa la isoo weydiinay what your mom do and I told them my mom she's a doctor oo ku qasle maxaan ku yiri waa ii saadisay ilaaha ii fududeeyo Soomaalida gar the thing is like ilmaha way sheekaystaan iskuulada marka tagtid habartaade waxba kala ogeyn oo turjuwaan u baahan markastaba ilmaha qarrab si saadi lagu arka waxba ma batiida waa loogi ilmaha gurigaas caawitaan u baahan yihiin badan at the end of the day ilmihi 0 baa laga siinayaa F baa la siinayaa F ayaa la siinaya halkaas ay ka dul daaraysaa cunug F la siiye markuu soo weynaado wuxuu fiirinayaa reportkiisii wuxuu taagay maxaad qabsan kartaa qeyrkiisa dhaafeen waaba dhaafeen qeyrkiisa waa hore F la siiye asaga dhaba ilmihiina wax u barta run ahaantii faarax idima maqna inta aan soo aragnay nagu fila we done ilmahoodana ha isku badinna runta idin sheegaya gabdhihiinan ilmaha isku badinaysaan dhaafa ilmaha waa loo soo dhigto waxa lagu soo dhigtay ilmaha damo ay badan yihiin damo dayac haddana ku sheegaya hooyo adag oo ilmaheeda korsata ilmo laga ma qaato qasir ay ugu dhacdaa waxay ahayd anigu maadaama state-ka cidna ii joogin ayaa waxa dhacday markaan gabadha dhalay aabaheedna uu ka maqnaa state-ka waxaan dhahay daycareadu waa xiran yihiin hal daycare bisaan helay oo home daycare gabar oo Iranian waxaan ku dhahay daycare-kaas u baahanahay waxa lagu dhax ma ku sheegnaa you want to take your children to daycare waa inaad jeebkaaga kala baxdid you know Minnesota iska dhaaf aday ku taala Minnesota dhama qaabilsan tahay gabdhaha xanta jareeya ku dhah waxa leedahay jeebka ina kala baxdid waay okay waaya hadii ay kala bixi karin dhageysiya aniga naftirkeyga waa
haddaada kala bixi karin ali daycare oo ilmaha ay geysan karin maadaama aan marka ayada dhiiga igu yaraa waxay ahayd inaan isbitaalka tago week twice oo aan iron lagu shubaa IV lagu xiri jiray for 2 hours haddii aan ilmahaaga daycare-ka aan kala bixi karin waxaan ku haynaa foster care waa taqaani foster care marka ilmaha la qaato ma la geeyo ilmaha marka la qaato la geeyaa waxaan ku haynaa foster care oo aad geysanaysid marka dhakhtarka ka yimaatidna ilmahaaga soo qaadanaysid waan fikir waxaan dhahay sheegada may dhacda hadda ha okay aan ku dhahay saa haday ta ana liu cagjugleyna mogta waxa leeyahay ama jeebka kala bax daycare anaga kuma caawinayna hadda maadaama aad iskoolna aadayn guriga dhex fadhidid oo sugaysid inta ka dhalaysid ama ilmaha noo keen meelan geynayna marka ka soo baxdo dhakhtarkana waa lagu keenaa anyway inay gaaladu ilma qaadanaan ku sheegaya marka dadka hadda oo saanway cunuga liga qaatay foster care ilmaha liga geey gaaladu they got no time for you honey daycare-rada hata lacag inay kugu bixiyaan ma rabaan unless you are a student unless you working yeah if you're single mother if you're working they're gonna support you you have daycare if you're going to school they will support you with childcare but the thing is like dadka iska soo goynayo ilma la qaata hello ana ilmo ku korsanaya badweynta dhaxdooda hal qofna ii joogin yeah no one aniga agteeda ka dhow ma laha at the end of the day hadii ilmo la aruursana ana liga qaadan laha yeah but they know who I am so the only choice we have for you aligu dhahay ama foster care ku geynayna labada wiil markaad dhashid oo ka soo baxday dhakhtarkana waan ku keenaynaa ama daycare-ka lacagta jeebkaaga iskaga bixi daada dhiibatay yani waa warcad adaa uur noqdaa leedah ama jeebkaaga iskaga baxso oo daycare ama qof u qabso ilmahaaga babysitter warcad weeyaan qalad kuma laha waa runtood waxaan ku yiri okay saas mi aha okay aan ku dhahay I will see what I can do anyway alxamdulillah lacag baan haysanay gabadha aabaheed baa wax ii soo diray daycare-ka sidii baan gabadhi ugu geystay maalinka $100 baan bixinay labada wiil anyway weegi laba maalin u geysana inta kalena guriga ma iska joogaba marka midda meesha taalo markay dad ii yimaadaan ama gabar ilmaha laga qaato leedahay anigu waxaan ogahay inay gaaladu ilmaha iska qaadaneen ama ilma ayna wax ku falayno walaala ilma indhawada buluulaba maalin kasta intii la dhalo dhakhtarka laga tagaa ma ogid miya kuwaagan afrikaanka timaha adag yaa u baahan ilma wada indha buluula ba intii la dhalo wallahi ayagoon la dhalin bay gabdhihii dhahaan qofkii la siin lahaa noo raadiya isbitaalada meeqa ilma laga wada tagaa children hospital hadaa tagto waaba yaabaysa ilma waxaa jira hata dadkooda weli soo booqanino qofna na loo helin sida arigii oo kale meel saas lagu haaya indhaad isku haysaa ilma nagala qaatay ilma lacag la lagu raadsanayo ma ahane ilma la qaatay ilma la iskama qaatay maxaa lagu qaatay murdaysa 24/7 ma jiifte maxaa qaldan sida loo qaadanaa ilma adoo soo taagtaagana quudinaysa u qabeynaysa dar xiraysa sida loo qaataa ilma la iskama qaato ilma laakiin la dayaca la qaataa runta la isku sheegaya marka wixii adigu ilmaha laga qaato meeshan qurbaa la dhahaa haddii aad doonaysidna runta waxay tahay haddaad doonaysid inaad ilmahaaga ku korsatid